السلام عليكم وبرنامج كيني تحراع التاريخ ده dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhammaaday ayaa askari ruush ahaa oo ka mid ahaa askartii fasaxa la siiyey si ay qoysaskooda u soo booqdaan ayuu ku laabtay magaaladiisii markii uu soo gaaray laamigii xaafadiisa hormari jiray ayuu arkay gaari ciidan ah oo meyd guraya gaarigana waxa buux dhaafiyey meyd badan askarigii markiiba wuxuu gartay in cadowgii ay xaafadan diyaarado ku duqeeyeen oo ay dad badan ku dhinteen halkan gaarigu waxa uu meydka ku wadaa xabaalo si loogu aaso xabaalo wadareed oo dhammaantood hal meel loogu aaso askarigii waxa uu arkay haweeney meydka ku jirta oo xiran kaba uu islaantiisii u soo iibiyey kuwa u eg inta aanu dagaalka aadin ka hor wuxuuna markiiba ku cararay in uu aado gurigiisii si uu u soo eego in xaaskiisii ay nooshahay iyo in kale nasiib darrose waa uu soo waayay xaaskiisii waxa uu ku soo noqday isaga oo ordaya gaarigii waxa uu soo jiitay meydkii waxa ayba noqotay xaaskiisii waxa uu damcay in uu meydadka kale ka reebto si uu kaligeed gooni ugu aasto isagu markii uu cabaar halkii meydka ku hayay xaaskiisa ayay mar qura neefsatay oo nafi soo gashay waxa uu geeyey dhakhtar si loo dabiibo oo xaaladeeda caafimaad loola tacaalo dhowr sanadood kadib islaantii uur ayay yeelatay waxa ayna dhashay Vladimir Putin oo magaciisa oo buuxa uu yahay Vladimir Putin ninka maanta ah madaxweynaha Ruushka askariga xaaskiisa mid ahaanta loo qaaday waxa uu ahaa Putin aabihii sheekadani waxa ay ku qoran tahay buugga Hard Choices oo ay qortay Hillary Clinton ee ay kaga hadlayso taariikhaha iyo dhacdooyinka iyadoo ay goobjoog u ahayd iyo kuwii saameeyay